Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada ku xidhan kanaalka Hoyga Bulshada ku soo dhawaada barnaamijkeena oo ka hadli doona wax loogu magac daray prank oo indhoweetaba halkaasi uga shidneed dhalinyarada Soomaalida balse maalmahan dhanka Soomaalida waxa ku soo batay wax loo yaqaan prank oo in badan dibadaha lagu yaqaanay xitaa wadamo badan oo aan islaam ahayn ayay mamnuuc ka tahay balse Soomaalida ayaa haatan u muuqata meel ayba ka dhigteen abaya macmiil ku soo dhawow mowduuceen oo dhameystiran fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka Hoyga Bulshada waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا waxaad arkaysaa dhalinyaro sameynaysa prank balse ma oga dhibaatooyinkooda waayo aakhiriya adduunba waxaan ku anfacayn haddaad waqti ku lumiso dhibaatadeeda ayay leedahay waa maxay prank muxuuse ka kooban yahay prank waa inaad dadka ka naxisa ama ku ciyaarta adigoo kaamarad wata ama kaamar la'aan ah wuxuuna isugu dhex jiraa prank marka la sameynayo inta badan laba arrimood kow been inaad sheegto labo iyo inaad qofka ka naxsato haddaba labadaas arrimood diinta islaamku maxay ka qabtaa beenta kama mid aha sifooyinka qofka islaamka lagu yaqaano waana sifooyinka munaafiqiinta sida walaalkaygiyow ha ku sameynin barnaamijkeena Maxamed calayhi afdalu salaam wa aska tasliim oo ah macalinka nolosha oo inooga digay inaad dadka kale ka nixina macaadallah hooyo ayaa dhaxlaas waxaan arkay gabar iyo wiil ka nixinayaan hooyooyinkooda bal ka sheekay hooyada haduu wadnaha istaago maxaad leedahay dooti hooyay raali noqo hooyay uma lahayn kuma suurtagelayso mana shaqaynayso walaalahayga ku dayashada dadka aan muslimiinta ahayn halaag iyo xumaan iyo maxaa la dhahaa nolosheena hoos u dhigna ma ahane ama ila dalika kama faa'iideena wax fiican sidoo kalena beenta waxaa loo diiday in si kaftan ah xitaa loo sheego nabiga Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri halaag ayaa u sugnaaday qof ka sheekeynaya been si ay dadka kale ugu qosbeenta waxay dadka ku hogaamisaa faajirnimo iyo sidoo kale naar iyo xadiis fara badan intaan lagu soo koobi karin oo hadallo culimo badan ay tiri arinka baranka la dhahaana maxaa loo jeedaa hadafkana waa maxay tahay qofka muslimka ah oo qof aqli badan waa qof maskaxdiisa isticmaala waa qof akhlaaqdiisa iyo xushmadiisa ilaaliya aan ilaalin xushmadeena Soomaali hadaan u nahaynay wanaaga iyo khayrka iyo kartida qofka in laga naxsado diinteena suuban waxay diideen qofka muslimka ah laga naxsado ama se wuxuusan ogeyn lagu sameeyo oo lagaga dhigo wax kadiisa kalena nabigeena nabad iyo naxariis korkiisa haatee wuxuu diiday in asxaabtii maalin saaxiibkood iyagoo ushiisa ka qarinaya uu la kaftamay wuxuu ku yiri sidani sax ma ah haddii prankiga laga reebo labadan qodob aan kor ku xusnay prankiga ma noqdo wax diintu ay banaysay prankiga noocee ayaa la ogol yahay waxaa la ogol yahay mid ka kooban axaadiista nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo maalintii asxaabtu nabiga la kaftameen markaasay dhaheen nabiyow min nala ciyaarisa markaasuu dhahay anigu kuma hadlo waxaan xaq ahayn walaalada ku xidhan kanaalka Hoyga Bulshada intaan magac iyo shacbiyad daawasho badan ku raadinayno iyana meel xun inala galin waan dareemayaa in Soomaalida aad u fara badan oo ku kala nool daafaha caalamka inay sameeyaan wax loogu magac daray prank balse prankigu sax maaha fanaaniinta iyo sidoo kale qolyooyinka majaajiliyeestayaasha iyo sidoo kale dumarkaba inay waxyaabo prankiga oo la yaab leh ay sameeyaan balse wax diinteenu banaysay ma waa waxyaabo lagaga talaabay xadka diinteena islaamku inoo banaysay hadda wadamo badan oo aan islaam ahayn ayaa laga mamnuucay oo dhaqan xumo iyo dhibaatooyin nafeedba ay u geystaan prankiga sidoo kale qofka bini'aadanka waa laga naxsanaya naxsashaduna diinteena islaamku ma ogola inaad qof bini'aadan oo muslim ah aad ka naxsato xumaanta adigoo nafsadaada ka ilaalinaya masuulna ka wayna naftaada ku hadaysaa wanaaga qormada muhiimadda laga leeyahay waa inaan gartaan qof walba prankiga ku imtixaaman si uu uga fogaado dhaqankaas nagu cusub axaadiistan kor idinkula wadaagay waa saxiix waana ogahay in mowduucan marka ku soo gaaro inaad fahmi doontid ujeedkayga balse xagga qaar kalena ayba ku sii fakarayaan in prank mar uun ay sameeyaan laakiin waan kaaga digayaa walaalkayga muslimka ah prankiga wixii la mid ah dhaqankeena maaha muslimiinta intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa mowduuceeni caawa ee prankiga aanu ka digtoonaano saaxiibkayga muslimka ah aad ku maadsantay mowduucan haddaan min bilow ilaa min dhammaad ila soo gaadhay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibada qaaliga ah fi amaanillah